بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامجka garashada nafta iyo guusha nolosha. barnaamijka garashada nafta iyo guusha nolosha waa barnaamij aynu uga gol leenahay inaan bulshada ku hadasho luqadan ugu soo gudbino waxyaabo badan oo ka qayb qaadanaya fahanka naftooda iyo waliba waxyaabaha caqabada ku ah horumarka noloshooda. xalqadani waa xalqadii ugu horeysay ee barnaamijka waxaana ku eegi doonaa hadduu alla yiraahdo garashada ama barashada nafta si aynu u gaarno guusha aynu doonayno. waa lagama dhammaan inaan nafteena fahanno. barashada nafta ma ahan arrin sahlan, waxayna u baahan tahay in la siiyo waqti badan. naftu waa shay cajiib ah, waxaana ku tusinayo inay sidaa tahay sida uu alle subxaanahu wa tacaala ugu weynay qur-aankiisa. waxaana la sheegaa in kelimada nafta ay ku soo aroortay qur-aanka 295 jeer. alle wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay isaga oo ku dhaaranaya nafta, wa nafsin wamaa sawaaha. alle markii uu wax ku dhaaranayo uguma dhaarto cayaar ama sahal, balse waxay ku tusinaysaa in arrinka shaygaasi uu aad u weyn yahay. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa alle ha u naxariisto ruuxa aqoonsada naftiisa qadarkeeda. haddaba si aynu u aqoonsano nafteenna waxaa lagama maarmaan ah inaynu isweydiinno su'aashan, waxayna su'aasha tahay anigu kuman ahay? sidee baan nafteeda ku fahmi karaa? in badan oo naga mid ah ma awoodaan inay cabbiraan waxa ay doonayaan, iska daa in ay sheegaan ama ay aqoonsadaan qofka ay yihiin. sidaa darteed in badan waxay ku guultaraystaan in ay xaqiijiyaan guusha noloshooda, waxayna ku nool yihiin dhalanteed iyo nolol aan macno lahayn. haddaba si aad u fahanto ruuxa ama qofka aad tahay waxaa lagama dhammaan ah inaad ogaato 5 arrimood. midda koowaad waxay tahay waa maxay waxa aad doonayso? maxay tahay waxa aad jeceshahay iyo waxa aadan jeclayn? dabcan farq weyn ayaa u dhaxeeya waxa aad jeceshahay iyo waxa aadan jeclayn. hase yeeshee waxaa jirto waxyaabo aad jeceshahay haddana noqon karo wax aan wanaagsanayn, sida inaad jeclaato balwadda. balwaddu dabcan waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka qaar ay jeclaystaan, balse markii la fiiriyo waa shay aad u xun, ugu dambayntiina keeni kara qofka inuu dhibaato ku rido. qodobka labaad, aqoonso waxa aad doonayso. ma taqaanaa ujeeddada aad ka leedahay nolosha? hanti miyaad doonaysaa? shaqo miyaad doonaysaa? xiriir miyaad doonaysaa? waa lagama dhammaan inaad isweydiiso su'aalo fara badan. maxay tahay ujeeddada aan saaka uga soo baxay gurigayga? maxay tahay ujeeddada aan caawa u soo jeedo? maxay tahay sababta aan internetka u isticmaalayo wakhtigan oo dhan? maxaan halkan saacaddan u fadhiyaa? maxaan saacaddan tv-ga u kor fadhiyaa? waxyaabahan oo dhan markii aad isweydiiso isla markaana aad ka jawaabto waxay ku siinayaan dareen kaasoo ku gaarsiinaya in aad naftaada fahanto. qodobka saddexaad, waxaad aqoonsataa awooddaada. haddii aad soo ogaatay waxa aad jeceshahay iyo waxa aadan jeclayn, maxay tahay awoodda iyo mawhibada uu alle subxaanahu wa tacaala ku siiyey taasoo dadka kale aad dheer tahay? waa lagama dhammaan in aad barato waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay ee alle subxaanahu wa tacaala uu si gaara kuu siiyey si aad naftaada iyo dadkaba uga faa'iidayso. qodobka afaraad, aqoonso ceebahaaga. waxaad ogaataa meelaha aad ku wanaagsanayn. dabcan ma jiro ruux bini'aadana oo aan lahayn waxyaabo liito. waxyaabaha qaar waxaa laga yaabaa inaad naftaada ka og tahay, balse ay jiraan waxyaabo badan aan ka warqabin. haddii ay arrinta noocaasoo kala dhacdo waxaad isku daydaa inaad raadiso qof kuu dhow ama aad ku kalsoon tahay, waxaadna weydiisaa meelaha aad ku liidato si aad naftaada wax badan uga fahanto. qodobka shanaad, waxaad isweydiisaa sidee baad uga faa'iidaysan kartaa awoodda uu alle subxaanahu wa tacaala ku siiyey. awooddu waa 3 shay: dadaal, hanti iyo waqti. waa lagama dhammaan inaad adeegsato 3dan shay si aad ugu dambayntii uga miro dhaliso naftaadana faa'iido aad u gaarsiiso, bulshadaadana aad wax u tarto. 5tan arrimood aan soo xusnay haddii aad si wanaagsan isku weydiiso, si saxana aad uga jawaabto, waxaa la rajaynayaa inaad naftaada fahanto, noloshaadana xal wanaagsan aad u hesho. intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka garashada nafta iyo guusha nolosha. inta aan mar kale dib uga kulmi doono waxaan idiin rajaynaynaa nolol wanaagsan.